halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xashka qarsooniyo halkaa qarsoona alxaqiiqa. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. falada barnaamijkeenu maanta waxaan noqonayaa macaawa laba qodob. qodobka koowaad waxa weeyaan wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti oo maanta war saxaafadeed uu sii daayay ku shaaciyay inay Itoobiya siin doonaan dekada Jaro taasoo 100% iyagu maamulan doonaan oo ay sidaa ku haysan doonaan. waa qodob dadku isweydiinayo oo aan isku taagi doono kana fahlan doono. qodobka labaad wuxuu noqonayaa baaqiyo ka soo baxaya dagaalka Eergaabo oo qorshaysan oo la qorsheeyay oo lagu talagalay oo ka go'an dawladihii MAU ka soo horjeeday Soomaaliya ka tahay iyo qaar kale oo caawinaya iyo huwantii lascaanood qabsatay oo ay ka go'an tahay dagaalkaasi iyo suuxdin dadkeena lagu soo xinayo maxay baaqiyo nabadeed oo labada dhan ka socda oo qoloylis ogi ay doonayaan ku khiyaamayaan qaranka Soomaaliland iyo shacabkooda. labada qodob baan doonaya ka hadlo. qodobka koowaad dad badan bay soo wacay maanta oo lahaa wax moodayay warkii uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti. waxaan doonayaa dadka inaan wax badan fahansiiyo isna dul taago wixii hore u dhacay iyo halka wax maraya. haddaan taariikhda dib ugu noqdo dowladda Itoobiya markii ay dagaalkii gashay Tigreega waxa ka caawiyay qowmiyadda Axmaarada oo macjabad ay samaysteen dagaalka ka qayb gashay xoog badan gelinaysa iyaga oo markaa kula dagaalamayay inay dhul ay Axmaaradu leedahay haystaan Tigreegu oo ku tirsan yahay kililkooda kaana ay kala soo noqdaan oo cadaadiyaan. Eritrea oo iyaduna doonaysay inay baawarka iyo awoodda muddada badan Itoobiya soo maamuleysay jirta ee colaadda ka dhaxaysa iyo deegaanka iyo dhulka ay isku haysteen iyaguna inay la ciifiso. labadaasay heshiis ku lahaayeen dowladda Abiye oo is lahaayeen waa ma garanaysaa waxbaa ku helaysaa. Prime Ministerku markii dagaalkii lagaga adkaaday Tigreega wuxuu soo dabaalay dadkii Tigreegii oo waxay ku sireen Pretoria waxaanay isla gaadheen heshiisyo hirgalay kuwaasoo ah in dhulkoodii Axmaarada ee ay haysteen aan loo gacan gelin cid kale oo halkoodii uu lahaanayo xuduudii ay lahaayeen kililkoodu in ma garanaysaa dowladdii ay qayb ka noqdaan inaan la godoomin inay maxay noqdaan kililkii ay xuquuqda ay lahaayeen awalba ku lahayn Itoobiya ay noqdaan oo nabad waarta ay samaystaan. arrintii heshiiska hay soo galay Prime Ministerka Itoobiya la soo galay Tigreega waxay keentay inay ka careysiiso Axmaarada qowmiyaddii Axmaarada ee islahayd halkaa dhul baa ka helaysaan oo nimankaa waa laydin cabiidinaya iyo Eritrea oo iyana sidoo kale filaysay. labadiiba way ka xanaaqeen heshiiska. Eritrea waxay gaadhay u safaaradeedii Addis Ababa fadhideen oo yeedho sidina inay ku maqatay baan ayaan filayaa. waxa kale oo ay hadda joojisay dhawaanahan in maxay diyaaradii Ethiopian Airlines oo ay markaa ka joojiyeen meesha. arrimahaas markii ay dhaceen Ethiopia ay dagaalkii Tigreega soo dabaashay ee ay dib u soo celisay Tigreegi Prime Ministerku isagoo oo maxay hadlaya oo badoonaya oo hanjabaya ayuu hadlay. maxay horta intaan u hadal waxa uu isku dayay inuu heshiiskii farmaajo oo Xasan Sheekh kala hadlo. Xasan Sheekhna uu ku afkaro waayay oo kaga hor yimi inaanu ku jirin heshiiskaas oo wax ka soconaya aanu ahayn heshiiskii badaha uu ku siiyay farmaajo dowladda Itoobiya. markii taasi dhacday waxa uu istusay in maxay dekada Casab oo xagga Jabuuti soo xigta oo aan far deegaanka leedahay
وعنفرتنا يسقى يوقش هي إثيوبيا يوقش حق نادي دكتو إنه دكتور قبسن كرو مركي وهذا برايم مينستر ولا دكتور دون الناس كستوان كهرنا شاركان كدونا إن بقول لا تلمي دكتور لا آذان تدان لا تلمي قارين أي مقرنة الدكتور هايستان بدن معقول لغة ما يسوى أرنتاسي سومالدو بدوتي waxay ku socotay oo number 1 aha hadii la ku rooyahay Eritrea iyo dekada casab Djibouti markaas uu ka dalbaday waxa ka dalbaday Ethiopia ayaa ka dalbatay tajaro waana u diiday iyadoo oo markaa doonaysay cid lagu socdaa inay tahay Eritrea oo Eritrea casab laga qabsado iyana markaa ay maxay dhulkan maxay ay isku haystaan ama ay ka haysato Eritrea Dumeera oo halka baddu ka yar tahay ay hesho oo halka bridge marka horeba ay la doonaysay Yemen u talaaba arintaas tujaro way u diiday si ay siday doonaysay waxa in Ethiopia ay qabsato asab arinta ka simris Abiy Ahmed hadana waxa uu la shiray ugaaska Gadabuursi iyo qolooyin kale oo markaa ayagu lahaa annaga meeshan deegaan oo heshiisyada kula gali karna arimahaas iyaguna dhinac ka socdeen iyadoo Ethiopia markaa wanaag hadana dhinac naga tusay naga wada siyaasadda isticmaalaysa arimihii nooca markii Xasan uu ku soo khasaaray heshiiskii farmaajo uu ku soo khasaaray Abiy Djibouti tujaro ay u diiday waxa uu حل نقطتي oo ka faa'iideystay arintii Somaliland oo ay wada hadleen dawladda Ethiopia heshiiskii Djibouti lagu qabtay Abiy Ahmed Amin Hassan Sheikh Mohamud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Geele ay galeen wuxuu ahayd marka dawladda Somaliland iyo madaxweynaheedu ay balaan u dejisan ama qorshe u dejisan ay kaga seexatay labadii qodob ugu muhiimsan oo ahaa inay laba dalo kulmay yihiin 60kii iyo inay heshiis gali karto Somaliland wada hadalka labada ka bacdi uu bilaabay doono labada heshiis markuu qaatayna dib baa loo ballamay yoomkii ku xigeenay MOU-ga ayaa la galay markaas labadii nin marka Djibouti uu ku kulmay madaxweynaha kula kulmay labaduba mariyaa miir u dabaysay wax kasta way sameeyay isla markaa Djibouti waxay soo qortay warqad ay u soo dirayso dawladda Ethiopia oo ay leedahay tojarnaan disiinana Ethiopia iska ignoorgareys waxba kama soo qaadin because waxay ogeyd halka ku socotay iyo heshiiska gashay inay ka dhabayso dawlad yaro aad u yarina aanay magaranaysa heshiisyadeedii waxay doonaysay arrimaheedii iyo danteeda aanay u sheegi karin haddana wasiirka arrimaha dibadda ayaa soo dulay oo Ethiopia yimi waxa uu la yimi waxa tojarnaan disiinana iyana lagama hoos qaadin dagaalka ugu Djibouti gashay meelo badan buu duusay talada Xasan Sheikh ku socdo Djibouti baa siinaysa oo socon weyd waxba waxay haddana samaysay Djibouti dhaqaaq ay ku hanjabayso inay jabhada samayso inay maxay fardhiya keento inay qaar awdal state sheegay keento arrimaha markay samaysay dhaqaaqa Ethiopia way digtay Djibouti digniin bay siisay ay leedahay arrimaha Somaliland dhaxiyay heshiisyada hadda farageyso adiga leewaay digniintaas Ethiopia ay Djibouti waa ta joojisay dhaqaaqii ay waday iyo xuquuqintii ay lahayd jabhada ugu xuquuqinaysay oo hadii ay taad samayso ay eedi lahayd because labada dal ee Somaliland iyo Ethiopia oo afar degto iyo halkan hadii la culowdo marka horena ay la culahayd Eritrea dhul bay ka haysatay inaanay isbixnayn ay aragtay oo aqalka kaba wala arintaas mid hore soo jirtay ay ahayd su'aasha maanta taala waa maxay taba hadii Ethiopia iyo Djibouti arintan ay isla ogol yihiin oo ay tojarro siinayso maxaa ku kalifay inuu kor u qaado wasiirka arrimaha dibadda su'aashaas isweydiinay maxay ayaguna u seexan waayeen kala seexan waayeen sidii MOU-gi Somaliland iyo Ethiopia oo kale su'aashaas waxa weeyaan jawaabteedu wasiirka maanta hadlay Ethiopia hore isugu diiday sidaan sheegay labada goor ee soo hordhigtay marna qoraalka marna uu isagu dhoofay labadaba waa laga dhageysan waayay
waxa maanta ka hadlayna waa yeekii u dambeeyay buu dhigayo wuxuu la hadlayaa adduunka uu leeyahay arrin baan haynaa xalay adduunka wadana la qabta Ethiopia arrintan laga soo jiya yani waa mariyatuur halkii u dambeysay su'aashaasi waxay maanta arrinta Djibouti ay iyo Soomaaliya madaxdooda ay la baryayaan dekado bilaash Ethiopia waxay fashilinaysaa arrimo badan iyo dad badan waxba ogeyn oo jihaad baynu galeynaa iyo badeena iib ma aha iyo waxa laha iyo qaar meelaha ka muraaqoonay waxa soo dhamay inay bilaa aqli yihiin oo aanay waxba fahansanin ay maanta kuwa aan waxba fahansanin maanta fahansinaysa sababta maanta oo bariyay dekadaha Ethiopia ay u diidan tahay waxa weeyaan Somaliland in laga la diidan yahay oo la xaasidayo cidna iyadoo xaasid ku hayn cidna dib ku hayn waxa loo diiday nolosha waxa loo diiday horumarka waxa loo diiday in tashato arrintaas mid wax lagu fahmi karo weeyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu karaa waa geesi dalkiisa dantiisa ay ka hormarinayeen danta shakhsigiisa danta dalkiisa oo ka qaylisiyay dawlado badan iyo dawladii oo kuwa jaarkanay iyo qaar caawinayaba ah wax kasta oo loo soo bandhigayna diiday inta aynaan ogeyn ayaana badan loo soo bandhigay waxa leeyahay waa nin garanaya wixii uu soo dagaalamay maantana doonay dalkiisa xaqiijiyo kuwii beenta sheegayay propagandada sheegay gudaheena joogay iyo kuwii cadowga dibadda wixii ay isugu sheekeen oo dhan waxa baabiyay safarka madaxweynaha dalkii oo dhan uu ku soo maray dalku dareenkii dadku ay qabeen ay ka qabeen cadowga dalku ku soo duulay ay kaga jawaabeen inay garab istaagaan madaxweynahooda waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku celcelinayay in doorashadana qabanayo dalka ay mudanay si dadkiisu u midoobaan dalkan uu difaacayo guul baana ka muuqatay kalsooni arrintaas dadkii ay maanta hadal hayayo arrinka wasiirka intaas sidoo ku filan baan leh qodobka labaad buu galay qodobka labaad waxa weeyaan dagaalka ka bilaabmaya ama jabaadaha iyo qorshaha ergaab laga leeyahay waa mid aan laba qoys oo maanta ergaabooda daga aanu ka dhaxayna waa dagaal siyaasi ah oo sidii laascanood loogu soo duulay leeno khiyaameeyay iyadoo maxay la iska dhigayo dad tashanaya oo la soo dhaweeyay dawladdu soo dhaweysay aamintay maalintii la dhiman leeyahay xabada tiyo kala weeyaan talawada maanta waxaan ognahay oo lagu tashaday oo maanta yaala maxay laascanood iyo deegaanada dawladihii naga soo horjeeday ma yugo u taag waayay oo Soomaaliya koow ka tahay iyo kuwa kale caawinaya Masar iyo Turkiga iyo Qatar ku jiraan in maxay halka ay ka raadinayaan meeshii quray wax ka yeelay Soomaaliland dadka la isticmaalayaan waa bahante oo khasaare iyo faa'iido aan midna ku xisaabtamayna dad magaranaysa aan dadkooda u nasteexayn ay mar walba maxay jabinayaan dagaalkaasi waa mid lagu tashaday oo dhici doona dadka reer Somaliland waxaan leeyahay leeydi khiyaamayn hore leeydi khiyaamay waan xasuusinaya nimanka baaqyada diraya dhinaca warsingeliga ka soo dirayay iyo kuwa dhulbahantii diraya labaduba inay been sheegayaan meel quran ka tusaya Ahmed Karash markii uu ku celcelinayay inay soo weerarayaan oo ka fududahay gooja cad nin quri intuu ka jawaabay oo reerkoodii baaq nabadeed muu diran way ku raaxaysanayeen Ahmed Karash warka uu sheegayay weeyaan ka runta ah ee uu yaalay ku tashadeena taa aamina maalintaas maxay ninka warsingeliye hadlayay hogaamiye dhaqameedkiina uu ka jawaabi lahaa dhulkayga nabad baa ka jirtay jooji waxaad wado ku dhulbaanto oran lahayn maadaama ay oran waayeen kula socdaan sidana waa khiyaamada in dadka looga dhigo in laba qabiil isku dheer dhaceen dabeeto dagaal qorshaysan lagu soo qaado dadka qaxaya ee ka qaxaya ergaabo ee dhulbaanto ama Naalaya Ahmed talay ku qaxayaan iska qaxayaan talay ku baxaya waxaynu arkaynay dhawaan in galad dagaalka uu tagay dhinaca warsingeliga gobolka Sanaag lagu soo dhaweeyay lagu tashaday waxa loo tashanayna waxa weeyaan xamar amarkii laga soo faray ee ahaa warsingeliga dhulbahanto Sanaag inta degtay intanow maamul wada sameeysta taasay ku wada socdaan ku dagaal galayaan waxaanay maanta aaminsan yihiin inay xoogna leeyihiin dawladna garab istaagayaan rasaas iyo hubna loo soo dirayo
iyo kharash ku dagaalamaan iyo shidaal arrintaas waa mid go'aankeeda la kala qaatay kuwa baaqyada Soomaaliland ka diraya marka horeba ma garanaysaa maxay in aynu ogeyn xaaladahooda ee shakhsiyaadka ee farkutiriska ah reer ceerigaabiyo reer Soomaaliland iyo dawladdu yaana idin qaldin baan leeyahay go'aanku waa dagaal ka dhaca gobolka Sanaag ha loo diyaar garoobo shacbi dawladda dadka deegaanka degan maxay in adda gudiya ay la hadlayeen garweyne waxaan leeyahay war kuwa cidina xigaa waa dawladdiina haddii shicib kale oo taakuwa ka helaysaan uu jirana waa kuwa haddii alla ku roon yahay maxay in xiis iyo maxay dega iyo Sanaag qayb kamid ah ergaaba iyo Sanaagta kalaba idadu ku xiga ama musaabuq yalla idin qalti ina adda gudo waxba laga weydiin ciidan gudiisa hamoodina tol idin soo gurmanay ama dantiina wada wuu idin lugoynaya isaga kuwa kalaba nasteexna idin maaha nasteex iyo tolba waxa idin ku idin xiga amarna eelafur isku dishaan marna labada ku joogtaan kuwaas dad idin xiga oo leeyahay wada dilayaan la kala jeclaan ayaan leeyahay xaq daraduna isma qarso maanta wadiga arkaya xirsiyeena xaashina soo bareero daraataan maalintii lagu faraxsanaa sawirada beenta iyo nasraadka la diray qofkii ugu horeeyay oo nasraad bay dhigayaan digida bas ma kaliibsanaya anigu hadda cadna inaan isoo hayn wadiga arka irana daacad maaha xirsanada daacad maaha maxamuud daacad maaha wanaag soo khiyaameynaya wiigan gudiisa maxamuud ingiriisku u diranay qeyr dhaan ulaha lacag soo ururiya saan u yeesho xubnaha golaha dhexe ee wadani sidaan xubno ugu darsado reerkeena wala inaan bay ka sheegay nimanka noocaas meesha waxa isku urursaday waxa laaliyo wixii siyaasadda ku saaqiday ee danahooda shakhsiga iyo hungurigooda u yaqaanay maxay waliba dawladda kulmiye hore u badan waa kuwii maanta sababay kursiga Soomaaliya ee qaramada midoobay ma ilahayna banaan ku yaalay markii ay ka saareen ayagu maxay ku meel gaarkii shirkii London maxamed Cabdilaahi gaa imka balaabaas ka dhigay reer xamarka iyo xirsi oo markaa prime minister aha weeyaan raggii godka ay nagu riday kursigii naga dhaxay qaramada midoobay siiyay Soomaaliya warka sababta wax la ugu dagaalamayo dhan iyaga bixi awoodda ma ilahay Soomaaliya kuwii nooca maanta intii noor yimaadaan inoo sheegtaan isbedel inaga leeyahay waxaan leeyahay doorashadana waa la galayaa sidii madaxweynaha oo waa laga codanaya kuwa lagu khasaaray ee beenta u sheegay ee Soomaaliland ka soo horjeeda ee shakhsiyaadka ah shacabkii Soomaaliland waa kuwa maanta muujiyay taageeradooda madaxweynahooda u muujiyay ee fariinta u diray cadawga Soomaaliland dalkana waa la difaacay